إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أيها الإخوة والأخوات والليال، waxaynu maanta wax ka taabanaynaa munaasabadda ciida inagu soo foolo darteed axkaamta ku saabsan udxiyada iyo ciida. axkaamta ku saabsan udxiyada iyo ciida intaanan taagelin, waxaynu ku jirnaa tobankii hore ee bisha xajka, bisha dulxija tobankeedaan ku jirnaa. tobankaas waxay leedahay, sida kulligeen wada ognahay, khasaa'is gaar ah oo iyada gaar u ah ayay leedahay iyo fadli gooni ah. allahna qur-aanka subxaana watacaala waa ku dhaartay, wuxuu yidhi walfajri walayaalin cashr, waxaan ku dhaartay fajarka waaga berigiisa ama salaada subax ama waktigaas iyo habeeno tobana. habeenada tobanka ah mufasiriintu waxay yidhaahdeen waa culimada islaamka oo khaasatan ahlu tafsiirka waxay yidhahdeen waa tobanka beri ee ugu horeysa bisha xajka. nabiguna waa ammaanay calayhi salaatu wasalaam, ammaan dheer ayuu ammaanay maalmahan oo uu u sheegay calayhi salaatu wasalaam, oo uu yidhi maaragtay ilaahay agtiisa subxaana watacaala camal la sameeyo waxaa loogu jecel yahay maalmahan oo dilxijo tobankeeda hore ayuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam. xataa saxaabada ay yidhahdeen xataa jihaadka fii sabiilillahi, uu nabigu yidhi haa, xataa jihaadka oo fii sabiilillahi lagu jihaado ka fadli badan yihiin, ilaa qof baxay oo asagii naftiisii xoolihiisiiba hal mar intay baxeen ku baaba'een maahan. marka acmaasha maalmahan faraha badan ee la sameeyo, maadaama hadda ka harsan tahay 3 beri oo ciidii 3 beri ka harsan, 2 beri ka harsan tahay, iyo maalinta ciid marka lagu daro, oo marka ciidda lagu daro ay noqonayso 3 beri, jumco iyo sabti iyo axad oo hadda la ciidaayo. acmaasha ugu wanaagsan ee la sameeyo way fara badan yihiin, laakiin waxaa ugu muhiimsan xajka, qofku inuu xajiyo hadduu awood u leeyahay, leanna waa waajib qofka cumrigiisa hal mar. waxaa kaloo lamida cumrada, waxaa kaloo lamida qofku inuu badiyo adkaarta dikriga ilahi, inuu badiyo subxaana watacaala. dikriga ilahi waxaa ugu muhiimsan qur-aanka akhriskiisa, laakiin guud ahaan dikriga ilahi inuu badiyo. waxaa kaloo oo qofku inuu ku dadaalo ay tahay inuu masaajida camiro oo dhex fadhiisto, oo masaajidka uu joogo hadduu ictikaaf kara ictikaafo. waxaa kaloo kamid a salaadaha, gaar ahaan salaadaha sunnada ah, salaadaha waajibkana inuu jamaacaadka iyo xaadiro. waxaa kaloo kamid a qofku inuu soomo 9 beri ee bisha 1 ilaa 9 intuu awoodo, kulligeed hadduu soomi karo iyo hadduu maalmo ka soomi karo. gaar ahaan carafo ay ku dhaafin. nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi carafo, ilaahay subxaana watacaala waxaan ajir kaga doonayaa inuu axtasibu cala allah, yani thawaabka iyo ajir ayaan allah subxaana watacaala kaga rabaa inuu ku dhaafo sanadkii tegay iyo kasoo socda. sanadkii tegay oo carafada sanadkii tegay iyo kasoo socda, leanna bilaha xajka bishan ugu dambaysa, cafwan bilaha aan idhaahdo sanadka bishan xajka ugu dambaysa. bisha xigta waa bilowga hijriga, saa darteed sanadkaa tegay iyo kasoo socda bilaabanay labada in lagu dhaafo, kama fi saxiixi muslim wagayri. taasna marka waa xadiis saxiixa weeye. waxaa kale oo maaragtay aad iyo aad muhiim u ah qofku inuu sadaqa u sameeyo intuu kari karo, qiyaamuleyl iyo udxiyada. cashirkeena maanta marka wuxuu ku saabsan yahay axkaamta udxiyada iyo ciidda. axkaamta udxiyada iyo ciidda ayuu ku saabsan yahay cashirkeenu maanta, haddii alla yidhaahdo. waxaynu wax ka taabanaynaa marka axkaamta udxiyada. kolka hore ciiddana gadaal baan kaga daraynaa. waa arrinta koobaadee udxiyada. haddii qofku udxiyo gowracayo, waxaa loo baahan yahay inuu wanaajiyo markuu gowracayo. waxaa nabigu yihi calayhi salaatu wassalaam, ina allaha kataba alixsaana calaa kulli shay.
إلهي وناج إن وحول بلا وناجي أيو كقري وحول بإن لا وناجيه فإذا قتلتم فأحسنوا القتل هذا وحد ليسان دلك شرعي قال الله يا وناجيه وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح فأحسنوا الذبح هذا وح قورع هاجاتيه والنبي عليه الصلاة والسلام وليحد أحدكم شفرته قفك من ديدي سامو قورع أيه هأفيو سينا حيوان كلا قورع يقول فليرح ذبيحته نفك أو قورع مركها الراحي النبي عليه الصلاة والسلام هو مسألة مهم كان اسكو برادجنا لو بعيه مسألة ذا كله وضحية waxaa jirta masaa'il ayna ku bannaanayn marka la samaynayo waxyaabaayna ku bannaanayn ayaa jirta rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi arbacun laa tajuusu fi ladaaxi afar udxiyada ma gudayso kuma bannaana mana gudayso alcawraa albayinu cawaruhaa midda ishala oo ila-aanteedu ay caddahay waxaa la mida midda indhaho dhan la midaan indhaha oo maarata indhihii oo dhan ba ay dam yihiin yaa ka daran oo la mida walmariida albayinu maraduhaa midda xanuunsan oo qandha ama furuq ama maaragtay xanuuno kale ay hayaan way xanuunsanna taana ma gudayso walcarjaa midda dhutinaysa albayinu dalcuhaa dhutinteedu way caddahay walkasiir midda jaban walcajfaa riwaayo kale allati la tunqii midda jaban ee maaragtay lugaha mid ka jaban ama midda maaragtay weyda ah النبي عليه الصلاة والسلام كوانا مجوديان روايات كسي شيئا مرك أفر عباد النبي عدي أنت كلا ولا قياس قادنيا عباد أفر تأه وحوي أنت كلا ولا ليشينيا وحي كدران أنت وحي لما ده وحي كدران كو مدة إشالا مدة عندها لا أقدم بها لا ليشينيا مدة حنونسن سو مركيسيد وحال مدة مدة قبطة وحيابك لا أو لبات أوجي سنية oo dadku ay xanuun ku tiriyaan waxaa la mida mid dhutinaysa oo aan ariga raaci karin ama xayawaanlodi raaci karin ama geeli raaci karin soo ma arkaysid midda lugaha dhan ka go-an baa ka daran maaragtay aan soconba karin midda jaban buu nabiga calayhi salaatu wasalaam oon lahayn hilibka dhuuxa lahayn laa tunqi marka taasna ma gudayso nabigu saa ayuu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo arrinta aan ku baraarujinaynaa qofka raba inuu udxiyo sameeyo bisha bilowgeeda laga soo bilaabo mar hadduu udxiyada bishana ay dhalato in uu timihiisa ama jirkiisa wax ka gooyo lama ogolo waxaan ka ahayn wixii dee dhib u geysanaya cidiya oo kale ka horna iska jirtaan raba timaha haddaad xiiraysid inaad iska xiirtid jirka haddaad meel wax ka goynaysid saasoo kale intaan bisha la gaarin mar haddaa udxiyo aad niyooto arrintaa waa inaad joojisaa bisha markay dhalato haddii laakiin ciddadu ay jabto ay ku xanuunayso oo wax ku dhibayso waa iska goyn kartaa ama meel jidhkaaga haddii ka lulato oo dhibaato ku geysanayso oo kale taas kale laguma qabanayo ayib ولكن النبي عليه السلام وحجر إذا رأيتم الهلال إلى هلال ذي الحجة تضبشها ذي الحجة دلته وأراد أحدكم أن يضحي بتكين أو ربنا أضحية هذا سبنين حربته فليمسك عن شعره تميسا أكا استاغو يصاب حوالي سكتشرين وأظفاره يعديسا لفظ كله فلا يمص من شعره تميسك وحكتابا وبشره تركيس شيئا حديثك في صحيح مسلم أي كسرين تاسوا مسألة مهمة مسألة كله مركا وحل جورعيه وحيابها سنة وحكم إذا إنه النبي عليه الصلاة والسلام مركا وحل جورعيه وقبل إلا وتشيديو نبقى مركا لجورع حق قبل إلا وتشيديو مدة كله وحيابها واجبك وحكم إذا إن قف بسم الله إله بسم الله الله أكبر روايات قاربة قدرايا بسم الله الله أكبر اللهم تقبل إلهي وكأقبل من محمد وآل محمد ساس النبي عليه الصلاة والسلام ومن أمة محمد ثم ضحى به النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله بيقول اللهم تقبل روايات قار الله أكبر بقدرتي صلى النبي الله مدر عليه الصلاة والسلام يشي سماه إله وكأقبل النبي محمد يو أهل كيس وقرابة ديس أهل كيس iyo ummadda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam kadibna nabigu waa udxiyey marka ummadda nabi maxamed intaan udxiyeenina nabigu waa ka udxiyey calayhi salaatu wasalaam marka tabacan dad kale waad u niyoon kartaa qof dhintay oo kale waad u niyoon kartaa asagoo adig ku raacsan maha asaga keliya inaad ka gowraci laa waa inaad adiga iska gowracdaa marka niyadaas aad ku dartaa reerkaaga
iyo xataa dad kaloo muslimiin oo dhintood jeclayd macalinkaagii sheekhaagii dad aad jeclayd maarta waxyaaba nabiga ku udhexeey waxaa ka mid ahaa kaana rasuul llahi sala allahu alay wasalam yudaxii bikabshin wan ayuu nabigu gowracay alayh salatu wasalaam aqran oo geesa leh faxiil oo aan dhufaanayn yani wanka oo aan dhufaanayn haddii la dhufaano xoogaa ceeb wa inkastoo cayilayo neefku laakiin haddana waxaa ka fiican neefka aan la dhufaanin xiniyihiisii wata oo maaragtay faxiil macnaha kaasa laga wadaa oo dhalaya yanduru fi sawaadin wayakul fi sawaad wayamshi fi sawaad indhihiisu madow bay leeyihiin wuxuu ka fiirinayaa madow macnaha indhihiisa madow bay leeyihiin waa cad yahay jirkiisu laakiin indhihiisu madow waa wayakul fi sawaad afkiisana waa madow wayamshi fi sawaad lugihiisana madow baa saaran macnaha wanka waxaa isugu jira kalarkiisu laba nooc waay caddayn iyo madow isku jira waay taas waay xadiiskaas waa xadiis saxiixa waay riwaayada kale waxay leedahay oo anas uu wariyey daxa nabi sala allahu alay wasalam bikabshayni amlaxayn laba wan buu nabigu gowracay amlaxayn oo dharan waa cad yahay laakiin madow baa ku jira waa wan dharan oo cad laakiin madow iduhu inta badan waa madow soo markaysid laakiin qaarkood way dharan yihiin caddaan bay leeyihiin madowna ku dhex jiro kaas weeye marka amlaxayn dabaxuma biyadihi gacantiis ku gowrac nabiga calay walidaalika waxaa laga qaatay qofka inuu gacantiisa ku gowraco neefka hadduun awoodi karinna cid inuu wakiisho oo qof yidhaha ii gowrac inuu xaadiraana fiican inuu xaadiro wasama wakabar bismi illaahi buu yidhi allahu akbarna waa yidhi oo wadaca rijlahu calaa safaaxihimaa luqunta ayuu nabiga kaga istaagay suu neefku dhaqaaqino dhag loo siiyo hal mar xadka bukhaari warinaya waxaa laga qaanaya xadiiska aadaabta iyo neefka loo bayan la gowraco xadiiska jaabir wuxuu leeyahay naxarna maca rasuuli llahi sala allahu alay wasalam caama alxudaybiya sanadkii xudaybiya waa sanadkii lixaade waxaan gowracnay nabiga alay slat slam maciise albadana neefka geela ah can sabcatin 7 qoys ama 7 nin oo inay udxiya sameeyaan hal neefoo geela ku filan laakiin waa inuu 5 sano gaadhay wixii ka badan walbaqara neefka lodaana can 7 7 iyadana xadiiska muslim baa wariyay neefka lodana waa inuu gaadho 2 sano iyo wixii ka badan 2 sano wixii ka badan waa inuu 2 sano dhamayso 3 sano galo soo ma arkaysid arigana waa inay gaadhaan yani neefka inuu gaadho 1 sano idaha ama riyaha ama dhicadka saa u taqaano waa inay 1 sano gaadhaan iyo wixii oo sanadkii labaadna galaan idaha ayaa laga soo rabay haddii la waayo kaa neefka oo 1 sano gaadhay idaha waxaa la ogol yahay 6 bilood inuu gaadho markaa way kaa gudaysa haddaad weydo midka kale haddaad weydo walaakin nabiga alay slam wuxuu laa tadbaxu ha gowricina ilaa musinnatan mid ilkaha reeto ilka la soo baxday ilkii baa ka dhacay wayna u soo baxeen musinnada taasa laga wada ilaa an yacsura calaykum waa ariga waay riyaha iyo idaha labadaas aricadka iyo macnaa iyo idaha ilaa an yacsura calaykum haddii idinku adkaato fatadbaxuu jadacatan min adda'ni marka waxaad gowracaysaan mid jadaca waa mid ilkii ka dhaceen laakiin aan weli usoo bixin aan weli usoo bixin 6 bilood markay gaarto waay 6 bilood iyo wixii ka badan 6 bilood iyo wixii ka badan waay marka kaas haddii la waayo waayo waa la gowracayaa oo u bannaan tahay waxyaabaha ku soo aroorxada waxaa ka mid ah udxiyada in waktigeeda la ilaaliyo man daxa qabla asalaa nabiga alay slat salaam udxiyada qofkii udxiyeeya salaada ka hor fa inamaa dabaxa linafsihi naftiisa hilibuu u sameeya oo iska cunaya yani udxiyad ma noqonayso waman dabaxa bacda asalaa salaadii kadib qof gowracana faqad tama nusukuhu qofkaas camalkiisii oo udxiyada ahaa nusuka waa camalka markaa qabanaye qofkaas taan buu u yahay waa u dhammaystiran wa asaaba sunnata almuslimiin muslimiinta diintoodii saxdaheedna waa asibay sunnada waxaa laga wadaa jidkii xaq ahaa ee diin ilaah jideeyey dariiqadii muslimiinta iyo jidkii muslimiinta xadiiskan waxaa laga qaadanaya bukhaari muslim wariyeen qofkii gowraca salaada ka hor okay meel salaad lagu tukanaya haddaad jirto waa garanay meelaan salaad lagu tukanaynin ka warran meeshan salaada lagu tukanaynin qofku wuxuu sugayaa qorax inay soo baxdo oo xoogaa ay kor u kacdo inta salaada laga tukan lahaa la gaadho inta salaad laga tukan lahaa la gaadho kaas ayuu sugayaa maaragtay kaas ayuu sugayaa marka waxaan ku jirnay acmaasha ku saabsanayd udxiyada ayaynu weli ku jirnay acmaasha udxiyada ku saabsan ayaynu ku jirnay ayib culimo waxay isku raacsan yihiin xoolaha haddaad sadaqaysatid sadaqadii neefka aad gowrici lahayd haddaad xoolihii aad kusoo iibsan lahayd sadaqaysatid waxaa ka fudud badan udxiyada dhiiggaa la rabo waxaa kaloo ku baraarujinayaa
meesha aad joogtid baa fiican inaad neef ku qasho anaga afrikaan u dirnaa marar badan baahi jirtay iyo waxyaaba dartood laakiin waxa ka fadli badan meeshan aan joogno in anaga aan neef ka gowracno oo maaragtay qof intuu markaa kugu habeeyo aad maaragtay aad qaybna aad adugu cunto qaybna aad hadiyadaad u siiso oo qaybna aad sadaqaysato soo ma arkaysid saddex sana u qaybsid ayaa fiican soo ma arkaysid marka culimadu waxay intooda badan waxay leeyihiin sideeda waa shacaa'ir waay shacaa'irtana haddaad wax sadaqaynaysa wax kala sadaqaysato laakiin diinta inaad raacdo waxaa ka mid a inaad meeshaad joogtid ku samaysid taasaa ka wanaagsan taasaa ka wanaagsan shuruudda udxiyada marka waan sheegnay kow waxaa ka mid ah oo ugu muhiimsan inay tahay xayawaanaadka loo yaqaano nicmooleyda nicmooleyda soomaalida loo yaqaana waa geela iyo loda iyo ariga soo ma arkaysid arig wuxuu qaybsamaa ido iyo riyo buu qaybsamaa saadata qur-aanka allah wuxuu ku yidhi walikulli ummatin jacalnaa mansakan ummad kasta waxaan u samaynay mar ay acmaal cibaado samaystaan oo nusuk ay samaysaan nusuka waa acmaasha xajka iyo hadda loola jeeda liyadkuru iyo maalmo ciida iyo waqti ay maaragtay ilaahay ugu dhowaadaan qurbaan taas wa liyadkuru isma allah inay magaca ilaahay ku xusaan calaa maa razaqahum min bahiimati lancaam wuxuu ilaahay ku arsiqay oo nicmoolaya bahiimatu lancaam waxay dhahan waa nicmooleyda mufasiriinta muslimiintu suurat lxaj buu allah kaga warrama intaas shardiga labaad oo mactala neef haddaad gowracdo neef oo aan geel ahayn ama ari lo ahayn ama ari ahayn kaama guday yani digaag haddaad gowracdo masalan kaa gudi maayo tusaale ahaan shardiga labaad waa inay sanadkii maxduudkaha gaarto sanadkii loogu talagalay waa inay gaarto sanadkii loogu talagalay waxaynu yidhi hadduu neef ariya yahay waa inuu noqdo ugu yaraan ida hadduu yahay 6 bilood ugu yaraan waa inuu jiro soo ma arkaysid neef idaha hadduu yahay hadduu riyo yahayna waa inuu sanad gaadhaa idahana waxaa fiican in sanad gaadhaan kow hadduu yahay neef lo ah waa inuu 2 sano dhammaysto sanad saddexaad galo hadduu yahay geela waa inuu 5 sano u dhammaato oo sanadkii kale markaa uu galo soo ma arkaysid shuruudda taas ayaa marka ka mid ah shardiga kale waxaa weeye inayna ceeb lahayn ceebihan xadiiska kusoo sheegnay soo ma arkaysid midda ishala ama indhaho dhanla midda xanuunsan midda weyda ah iyo ceebihii kaloo lamidka midda afraad ina adigu leedahay weye waxaad gowracayso in adigu leedahay oo mulki adi aad leedahay weye ama lagu ogolaado oo sharcigu ku ogolaado inaad udxiyada ku samaysid ama qofkii laha uu ku ogolaado shardiga shanaad waxa weeye qof kale xaqi inuusan ku tacalluqin rahan oo kale waa inuusan ahayn neefka waxaa tidhi hebelow deyntii neefkan u hayso udxiyo kama dhigi kartid inuu asagu maxaa yeelay waxaa loo haystaa haddii deyntaas aad bixin weyda in neefkan la iibiyo xaq qof kale ku tacalluqin waayo waxaa ka mid a shuruudda kale waqtigii loogu talagalay waa inaad gowracdo salaada ciidda kadib ilaa qoraxdu ay ka dhacdo ayaamu tashriiqna waa maalinta 13 yani maalinta 10aad oo ciiddii weynayd ah maalinta 11aad maalinta 12aad intaa waa isku waafaqsan culimada khilaaf wuxuu ku jira maalinta 13aad madhabka shaaficiyada wuxuu qabaa 13 inuu ku jiro saasaana saxiixa insha allah so ilaa maalinta 13aad yaad gowrici kartaa haddii halkaa ku dhaafto ood xidhi way kaa tagtay soo marka qofkii gowraca salaada intaan la dhammaynin ciidda ama qoraxdu markay dhacdo maalinta 13aad udxiisu ma asixin udxiyada waxaa ugu fiican neef geela inaad qashid xataa adi keliga neef geela dhan inaad gowracdo oo maaragtay inkastoo neefka dhan waajib kugu wada ahayn laakiin saasaa ugu fadli badan kaamilatan waxaa kaloo la mid ah neef maaragtay lo ah inaad gowracdo hilibkiisa badan sooma neef ida ah oo sanad gaadhay kadibna riyaha ayaa ugu dambeeya waxaa kaloo kaa gudaya 7 qof neef geela 7 meelood hal meel baa kugu filan inaad iibsato in kala iibsato oo 7 qof aad ku qashaan ood xed ka dhigataan ama neef lo ah saas oo kaleeto waxaa ugu fadli badan xagga yani udxiyada sifada tilmaanta midka ugu cayiloon ugu hilibka badan ugu quruxda badan soo ma arkaysid hal neef oo ariga kaaga filan qofka gurigiisa iyo asaga reerkiisa xataa caruurtiisa hal neef oo ari ayaa kaga filan ama neefka geela ah 7 meelood meel ahaan ama neefka loo 7 meelood meel ahaan baa ku filan ilmaaga kula degan mar haddii guriga ay kula degan yihiin oo dherigiinu mid yahay
cuntadiinu mid tahay oona kala gooni u deganayn iyaguna udxiyadaasa ku wada filan udxiyadaasa ku filan laakiin haddii hal guri aad degan tihiin laakiin gurigiisu gooni u yahay oo kharashkiisu gooni u yahay oo wax walba isagoo gooni u baxsado asaga gooni baa looga rabaa asaga gooni ayaa looga rabaa soo markaysa masaa'ilka muhimka ay ka mid tahay marka udxiyadu saas ay ama qaybinta waan soo sheegnay oo qofku inuu ka cuno waxna ka hadiyo waxna ka sadaqaysta waay fakuluu minha waatcimu lbaa'is alfaqiir bu ilaha yidhi cuna ka cuna oo dadka dhibaataysanna wax ka siiya fakuluu minha waatcimu lqaanic almuctar saas allah yidhi subxana watacaala ilahay inaad ka cabsatana waa muhim allah subxana watacaala wuu ka aqbalaa un maaragtay dadka udxiyada dadka ilaah ka cabsado inta haddaan kaga gudubna udxiyada iyo axkaamteedii ciidda axkaamteeda in wax ka taabanina ciidda axkaamteeda waa masale aada iyo aad muhim u ah ciidda axkaamteeda waxaa ka mid ah inuu yidhi anas ibnu malik radia allahu canhu khaadimkii nabiga calayh salatu wassalaam qadima rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam almadiina walahum yowmaani yalcabuuna fiihima faqaala ma haadani alyowmaan nabiga alayh salatu wasalam madiinuu yimid iyagoo laba maalmood ay leeyihiin ay ciyaaraan binaanku waxay u baahan yihin nafis maalmahaas laba maalmood ay ciyaaraan ayay lahayn kadibna waxay dhahayn qaaluu kuna nalcab fiihima fi ljahiliya waqtigii jaahiligan ciyaari jirnay rasuulka ilaahay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam islaamka ka hor jahiliyada macnaha islaamka ka hor baa laga wadaa rasuulku sala allah alay slam wuxu uhi in allaha qad abdalakum bihimaa khayran minhuma in allaha qad abdalakum bihimaa khayran minhuma yowma aladxaa wa yowma alfitri xadiiska abu daawuud iyo nasaa-i ayaa wariyay sanadkiisu waa saxiix ayib nabigu wuxu uhi alay sl slam laba maalmood ilaah idinku bedelay oo ka khayr badan kuwii hore idinka khayr badan maalinta ciidul adxaa tan igu soo socota waa xaj kadib oo xajka dhammaadkiisa ah iyo yowm alfitri oo ramadaanka dhammaadkiisa ah soo markaysa ilahina yowm alxaj alakbar buu ku magacaabay maalinta maaragtay udxiyada la sameynayo oo maalinta tobnaada yowm alxaj alakbar saa darteed fadliga bishan waxyaabaha fadliga usii keenaya waxaa ka mid ah inay carafa ku jirto oo ilahay dadku dembi dhaafo subxaana wa tacala oo alxaju carafa nabiga alay slat salaam iyo inay ku jirto maalinta alxaj alakbar waa maalinta tobnaad waay marka afdal ayaam waxaa ka mid ah yowm alxaj alakbar wa yowm alqar maalinta xajka yani xaj alakbar maalinta tobnaad iyo maalinta ku xigta soo marta markii laga yimaada carafaad marka maalmaha fadliga badan ayaa ku jira soo markaysid marka maalmahan maalin ciida waay ciidda islaamka waye qofku inay farxaan dadku oo maaragtay ciidaan ayay muslimiintu ay xaq u leeyihiin nabiga alayh salatu wasalaam hadyigiisa haddaan wax ka taaban hanuunkiisii salaatulciidda nabigu wuxuu ku tukan jiray fi lmusalla meel magaalada ka baxsan oo loogu talagalay ciid ayuu ku tukan jiray nabiga alayh salatu wasalaam weligii masjidkiisa kuma tukan inagoo og masjidkiisa inuu u dhigmo halkii salaad kun salaado haddaan nabigu kuma tukan alayh salatu wasalaam wuxuu ku tukan jiray meel madiine banaankeeda oo ciidda loogu talagalay in lagu tukado ciidaha walidaalika sunnada islaamka waxaa weeye oo khilaaf ku jirin in musallaha ciidda lagu tukado nabigu masjidka weligii kuma tukanin ciid alfitr waa ciid aladxaa maxaa aniga ognahay salaada nabiga bialfi salaa inay kun salaad u dhigato kaana rasul lah sal lla alay slam yakhruj yowma alfitri waaladxaa ila almusalla xadiiska abu saciid alkhudri ayaa warinaya waa xadiis saxiixa waaye oo bukhaariyo muslim wariyeen soo markaysi nabigu musallaha ayuu aadi jiray sidoo kale kaana yaamuru الnisa bilkhuruuj ila almusalla jamiica الnisa xata alxuyad yakhrujna ila almusalla yactazilna almusalla yaqifna fi aakhiri sufuuf baciidan yashhadna alkhayr وجماعة المسلمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبلها ولا soo saaraya gabdhaha xataa caada qaba xataa wala soo bixinayaan gadaal bay iska fadhiisanayaan ducada muslimiinta iyo waxay ka qaybgalayaan takbiirta iyo ducada muslimiinta iyo wacdiga dhegeysanayaan laakiin ma tukanayaan maadaama ay caada leeyihin gabdho laakiin way soo baxayaan marka caruurta iyo gabdhaha iyo kulli waa la soo saaraya marka sunnada waxaa weye in banaanka loo baxo meel bannaan oon xidhnayn oo bannaan haddayna duruufi keenin roob iyo qabow iyo mashaakil kale jirin meel bannaan in lagu tukada waay meel bannaan in lagu tukada waay saa darteeda ibnu cabaas wuxuu yidhi kharajtu maca nabi sala allahu alay wasalam yowma alfitri aw adxaa fasallaa uma khataba uma ata nisaa fawacadahuna wadakarahuna waamarahuna bisadaqati muttafaqun caleyh nabiga ayaan raacay buu yidhi alayh salatu wasalaam yowmaal ciid ulfitri ah ama ciid uladxaa nabigu waa tukaday kolkii hore kadibna khudbadu akhriyey kadibna dumarkuu u tegay oo gadaal fadhiya markaasuu wacdiyey oo xusuusiyey sadaqa badan buu nabigu faray dumarka inay wax sadaqaystaan naartuuna uga digay nabigu alayh salatu wasalaam
صلاة العيد حكمة كنت إن مال مصلى وبنانا اللي قلت كذا وحاوي أن صلاة العيد إنما تكون في المصلى سنة وحكى معها سنة صلاة العيد وهو حكمة وين باكوتشرتا وحاول أن يكون للمسلمين يومان في السنة يجتمع فيهما أهل كل بلدة رجالا ونساء وصبيانا وحين علماء الإسلام برناك اللي قلت كناي و إن المسلمين سنة كيبا لبا قور أي يسوي مادان أو كل قود رأي الضمر كل قود يقوم بذي السن يسوي مادان oo qulubtooda ilaahay u jihaystaan kelimadu ay mid tahay hal imaam gadaashay ku tukaa yusalluuna khalfa imaamin waaxid yukabbiruuna wa yuhalliluun ويدعون الله مخلصين كأنهم على قلب رجل واحد فرحين مستبشرين بنعمة الله عليهم فيكون العيد عندهم عيدا ساسع الميلاد بمعنى رج الدمر قبله كل أضيال هل مر بيصبحيان هل إمام بتكنية هل صلاة أي تكنية هل إمام بتكنية هل صلاتنا ويتكنيا هل صلاتنا ويتكنيا صادرتد أئمة كلا دوغن تكيان هدي هل ملكو تكن كران ما سنة خلاف سنة أصل وحاوي دتك هل ملكو تكن كران إن هل ملو قادة يكتو كذان حتى هنا قادي كلين أو دي دن كنتو تاس يلو حاوي حاجة كينيس لكن وح كلا أو كيني كراه إن المسلمين تأي كلا تكذان ما ترى قلوب ميل كتكت وحاوي هل إمام هل وقتي هل مكان أو بنان كان كتكذان عيدا هذون الروب يقبو مشاكلات كلا يجريني مثلا مركز وكلا إساس واحد قرت وأنا ميل بنان أو عيد اللي قلت لك هذيك اللي مالي كلا إستاس ده وضمان وكلا بنان اللي كتكذان هل عيدنا يتكن هل ساعدنا يتكن هل إمام نوتكيو هل علماء وركل ساس لكن قف إنه يرى هذا صلاة أنا وقت هول بنتكرينا صلاة كلا وقت هول بنتكرينا صلاة هي الوقت هول بنتكرينا أو أنت سو يعني إمام تكيان دتك وأنت صلاة كلا دول تكو دتك يكون تلا جلان أو الله سي شيء وخلط دين سلامكم وقل دين سلامكم وقل قفك أي كتك تصلاة ده صحابة كأصحاب إيه قال تكنا قولوا هذي كنت كان كران ماشي يمدن عيدي مك صلاة لقى بحبي كنت كان كران سيدا هيد بين أتكنيان بمعنى لبا ركعود بي تكنيان تكبيرات كما لا إيمانيان خطبة ما لها أيغو إمامك كليا خطبينها بس لكن تكبيرات كما لا إيمانيان لبا ركعود بي تكنيان صفاتي صلاة لو تكنيان انت والله يسو تميد أما قريسا قفك عدو داها قريسا إيو عروتي سير هيك سولة تكنيان سي صحابة سمين رضي الله عنهم سو مركزين مركا تاس ومسألة آد مهمة دتك اللي برامج maxaa yeelay shicaarka in la muujiyo waay shicaarka in la muujiyo waay maalintaas waa in shicaarka ay muuqato hal mar muslimta soo baxaan waxyaabaha marka qaladaadka aan ku celcelinay waxaa weeye in dadka lagu yidhaahdo ma aragtay saddex meel baan saddex goor aan tukanaynaa salaada hore waqti hebel salaada labaad waqti laba salaada waqti oo dadku ay ku talagalaan iska seexdaan soo markaysid la hal salaad in la tukada waay mar haddii la helayo meel dadka qaadayso haddii dadka meesha qaadi weydo ku qasabto dantu markaa ولبا صلاة بل تكن كراهية صدح مركا هدي دتكو أي كقصبت سو مركا يسيد صلاة حكم كذا عيدة ما دام النبي دائما عليه الصلاة والسلام وسولي كتجين طبق الرسول صلى الله عليه وسلم علماء قالوا حين هو واجب سنة صحيحة علماء قالوا حقا أن يتهاي فرض كفاية يعني ذات قارة دي كذا مقارفة الدم كدعي أما هو سنة مؤكدة أقواش أسع علماء ليه مركا علماء حب بدأنا يتهاي سنة مؤكدة إن كسو علماء رجحين يتهاي واجب وعلين هديس وافقان جمعة يعيدوا جمعة دي ماشي وكبح حسا يعني قفك جمعة واجب كما دور اسكتو كان كرا أنا جمعة هذا مرد عيدتو تاسا قد سنة واجب تيبيلين على كل حال سنة مؤكدة هذا كس يعني قول كاس علماء البديهين أنا تهاي سنة مؤكدة أنا تهاي سنة مؤكد سو مركزي مركا قبلها waxaa looga baahan yahay inay soo xidhaan dhar asturan soo qaataan ee gabdhaha looga baahan sida ay Mu'atiya sheegtay radiyallahu anha nabi wuxuu amray asal in dumarka ay yimaadaan oo kulliga soo baxaan marka waxay tiri jilbaab xijaab ma helaysa gabadhi waxaad ka fahmaysaa xijaab la'aan may bixi jirin gabdhaha muslimiinta
jilbaab ma helaysa xijaab la-aan wuxuu nabigu alayhi salatu wasalaam walaasheeda ha ka soo qaadato walaasha hadday dhar baan haysato midda kale ee muslimadda ah ha weydiisato dan iyadu haysanin marka gabdhaha ilaahay ka cabsadaan intay bahal isa soo mariyaan oo isa soo qurxiyaan oo weliba dhar ku dhegan qaataan oo maaragtay make up ismariyaan laa oo qaarkood barfuum soo marsadaan arrimahaas oo dhan xaaraan wey lama ogolo gabdhaha ciidda imaanaya arrintaas looma ogolo gabdhaha waa inay ilaahay ka cabsadaan ha fidnaynina dadka dhaydi ku dhegan ha qaadanina mushkiladu waxaa waaye waxyaabaha dhaca inay rag iyo dumarku isu yimaadaan isa salaamaan gacanta iyagoo ajnabi kale isguursan karaa iyagoo xujaysan karaa waxaana kazan iyo waxaas sheekaa sheekay mar haddii laba qof isguursan karaan kazan gacanta la iskuma salaami karo waxaa kaloo dadka lagu imtixaanay sawir la galo sawir oo maaragtay aan wax xaaje oo keenaysa aysan jirin baa dadka lagu imtixaan maalinta ciidda waxyaabaha muhiimka waxaa ka mid ah farxad waay maalintaas carruurta waa in laga farxiyaa waxaa ka mid a dhar cusub in lasoo qaato ama kaaga hore soo dhaqo nadiif ah raggu barfuum way soo marsan karaan gabdhaha samaya maadaama ay muslimiinta la tukanayaan laakiin waxay marsan karaan waxaan soo udgoynin oo jirkooda dhididka iyo ka celiya hoos way marsan karaan jirkooda hoose oo maaragtay laakiin udgoon kasoo udgaya la taas looma ogolo taas looma ogolo soo markaysid nabigu wuxuu odhan jiray alayhi salatu wasalaam isku joog qurux badan ayuu xidhan jiray oo maaragtay aad u qurux badan ayuu nabigu xidhan jiray alayhi salatu wasalaam marka dhar u qurux badan soo qaadan kartid soo qaad dhar cusub haddaa heshid waa maalin carruurta iyo reerkii laga farxiyo maalmahaas nabigu wuxuu yidhi alayhi salatu wasalaam maalinta ciidda markuu ka hadlaayey wuxuu yidhi waa maalmo cunto iyo dikriga ilaahay soo markaysid iyo farxad wa maa dikri ilaahay farxad wa waxaa kaloo maalmahan aad sunna u ah takbiirta maalmahan hadda ku jirno gurigaaga haddaad joogtid allahu akbar laa ilaaha ila allah allahu akbar laba goorna tiri allahu akbar allahu akbar ama saddex goor ay soo arortay labadaana badan allahu akbar laa ilaaha ila allah allahu akbar inaad saa tidhah waxaa siyaaqun badan ba kusoo arortay oo kala duwan marka takbiirta mutlaqa ah gurigaaga gaadhigaaga shaqadaada jidka meeshaad socotid meel kasta guriga markaad soo gashid ku dhufta carruurta hooyooyinka guriga markaad soo gashaan takbiirta markaad gaadhigna saartiin takbiirta qaada allahu akbar kabiira walxamdulilah kaiira wasubxana allah bukratan wa asiila soo markaysid marka allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar walilahi alxamd allahu akbar kabiira walxamdulilah kaiira wasubxana allah bukratan wa asiila yacni waa in la akhriyo soo markaysid hadduu dadku ay ku tukanayaan meel bannaan ama meel kale oon masjid ahayn oo haba xidhnaatee sunno ma laha ka horeysa ciidda sunno ciidda ka horeysa ma jirto sunno ciidda ka horeysa ma jirto hadday masjid tahay laakiin taxiyatulmasjid baa lagaa rabaa hadday masjid tahay taxiyatulmasjid ayaa lagaa rabaa soo markaysid marka nabiga alai salaam wuxuu u baxay ciidulfitri wuu tukaday laba ragcadood ka horna ma tukanin kadibna ma tukanin bilaal baana la socday ibn cabaas baa xadiiskaas warinaya marka takbiirta allahu akbar laa ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar walilahi alxamd ayaa soo aroortay oo ka soo aroortay maaragtay saxaabada cali bn abi aalib cabdullahi bn mascuud ibn abi shayba ayaa kitaabkiisa ku wariyay maaragtay oo musanafkiisa ayuu kusoo wariday waana xadiis saxiixa waay waxaa ka mid allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar walilahi alxamd soo markaysid waxaa ka mid allahu akbar laa ilaha illa allah wallahu akbar walilahi alxamd waxaa ka mid allahu akbar saddex goor walilahi alxamd allahu akbar waajal allahu akbar calaa maa hadaana intaasoo dhan way soo arooreen marka adiga ayaa qaadan kara marka waxyaabaha oo dadku ay sameeyaan oo khaladka waxaa ka mid ah dikru ljamaaci in la sugo qof inuu qaado ka dadkuna ka daba qaadaan hal mar la qof walba halkiisu ka qaadaya qofka mikrofoonka haysta iyo ka kale iska fadhiya qof walba say ugu soo dhacdo ha u qaado hadday isku dhacdo markaa dhib ma leh hadday isku dhacdo mushkilad ma laha laakiin ha u qastin ina adu dadka u meeriso ay kaa daba qaadaan maxaa la yidhahdaa التكبير الجماعي علماء حلم وبدعة نبي كما سقنا عليه الصلاة والسلام مركا وحال ربا جدتك يمال والبا إن هذا الحشونين والتكبير تأتقاته وحصار آثار يعني التكبير تفضل إلى صار تألف ربضن تكبير تاس مركا عن وقت على هين حد يسعتها أما مدة وقت عليه وصل هذا قلاش وضع و عرفة مركي اللي قالوا يوم العرفة مركي اللي قالوا
يوم العرفة مركل جار سو مركيسيد صباح راس أي تكبيرة بالله نيسا صلاة قضاء شوضة إلى صدح طبعا كبشة عصر كذا أبو دمرس إلى قرح قد عضو تكبيرتها ويسعونيسا وصلاة قضاء شوضة تكبيرتي مطلقة هيدنا أنت أصلا ويسعونيسا طبعا كوغي لقصوا بلا وقت قاس أيضا ويسعونيسا سو مركيسيد waxyaabaha aadka muhiimka ah waxa weeye inay ciid tahay inay dadku dareemaan in carruurta laga farxiyo in xaasaska laga farxiyo in qaraabada laga farxiyo ciyaaro way bannaan yihiin gabadhu way iska heesi karaan laakiin muusig inay la soconin waayo midda kale wax caytana ama xun inuusan ku jirin waayo laakiin way ciyaari karaan laakiin rag iyo dumar la iskuma dhex dari karo muusigna lama ogolo laakiin waxay qaadi karaan waxyaabo buraanbur iyo heesa aan la soconin muusig iyo hees markaan leeyahay waxaan ka wada waxyaabay gabdhuhu qaadqaadaan way ciyaari karaan waxaasoo dhan waa iska furan tahay maalmaha Soomaaliya nabiga calaih salaam wuxuu yidhi ayaamu tashriiq ayaamu akli wa shurb wa dikri illaahi subxaanahu wa tacaala maalmaha ciidu waa maalmaha cunto iyo cabitaan iyo dikriga ilaahi subxaanahu wa tacaala waxyaabaha fiican waxaa ka mid tahniyadda ka mid in laisu tahniyadeeyo ahay عيد مبارك تقبل الله منا ومنك ساطر تسكنه تاس وساد مارتي إن تراهيد قف مركز المسلمين تا وعن كبر رجلنا إن يكون دلالان بالما صوص صعدة أعماشاس إن يكون دلالان إن يسعفيان إن يقربوا الحريان إن يعد يوعي كران أي وعان عد يتكر زوز زيارة كران زوز زيارتان عرورت إغيرها إن لغا فرحيو قف والبي ظروف تيسا تاس أي نفتي تينا أودر دار مياه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك